waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastoo joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii falaqaynta qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a dagaalka jabuuti iyo somalilan oo hadda dib u bilaabmay iyo ninkii ismaaciil cumar geelle oo hadda galka seebta kala baxayba waxa uu soo rogay oo uu yidhi jamhuuriyadda somalilan madaxweynaha iyo xukuumadda cusub ee xilka la wareegtay waa inay aniga ii hoggaansamaan waxa uu hadda soo saaray amar ah inuu gebi ahaanba baasaboorada kala noqonayo mas-uuliyiinta xisbiga wadani haddii aanay isaga u hoggaansamin ina geelle waxau ku amar taaglaynayaa uu leeyahay qodobka koowaad waa inay wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya aad degdeg u bilowdaan wadahadaladaasi oo ah dib u heshiisiin iyo inay markaa somalilan dee dib ula midowdo soomaaliya qodobka labaad waxa uu leeyahay oo uu ka cadhaysan yahay somalilan oo xidhiidh hadda markaasi muhiimadda weyn siisay imaaraadka carabta oo markaasi booqashadii koowaad uu ku tegay madaxweyne cabdiraxmaan ciro waxa uu hadda ina geelle uu leeyahay waa in tallaabadaasna laga tanaasulaa oo hoos loo dhigaa waa in aniga la hoggaansamaa buu leeyahay qodobka saddexaadna waxa uu maqlay markaa heshiiskii etoobiya iyo somalilan la dhammaystirayo tallaabadaasina waxa uu sheegayaa in deg deg looga noqdo waxa uu hadda amar soo saaray oo uu leeyahay waa in aad ka soo xaadirsaan oo aad timaadaan isagoo la hadlaya qoliyihii xisbiga wadaniha ee markii doorashada wadani ku guulaystay deg deg u yaacay ee de ina geele u tageen ogeyn inay raxanraxan ugu yaacayeen ee markaasi iyadoon xukuumaddiiba xitaa xilkii la wareegin raggaasi ayuu hadda dawanka u garaacaya waxa uu leeyahay deg deg iskaga soo xaadiriya jabuuti haddii kale waxuu yidhi baasabooradiinii oo dhan waan kansalaya iyo waxa kaloo ku hanjabaya xuduuddana inuu xidhayo faahfaahin dheer ayaan idiin hayaa iyo waxa hadda markaasi ina geelle dee awoodda intaa lag isku tusay isagoo in ogeyn in waktigii madaxweyne muuse biixi cabdi ina geelle inuu markaasi ku dhici waayey in uu sidaa markaa ugu soo dhiirado dagaalla iyo markaa de wax u yeedhiyo oo aynu ogeyn inuu kooma galay 9 bilood ee MOU-ga ama 11 bilood ee u dhexeeyay xilligii doorashada ilaa iyo heshiiskii MOU-ga Somaliland iyo Ethiopia haddaba iminka maxaa kalifay ayaynu isweydiin doonaa in uu sidaas oo dhan hanjabaadaasi soo diro oo uu markaa u libaaxeeyay xukuumadda Somaliland dhinaca kale waxa aynu xusi doonaa xus oo xasuuso ah oo aynu dul istaagi doonaa taariikhdeena ilowsho dhawaabaa layidhi moomulba waxaan eegi doonaa taariikhda ay leedahay halkii dadka lagu xasuuqi jiray badhka hargeysa la odhan jiray iyo boqolkii dadka laisku xidhi jiray oo hadda markaasi nin taariikhiyahana oo goobjoog ahaa dadkii halkaa marka lagu xasuuqayay uu inoo sheegi doono taariikhda ay leedahay halkaa ku duugan ee hadda markaa dadkeennan dhallinyartahayna ay hilmaansan yihiin dhibkii iyo xasuuqii markaasi dowladnimada jamhuuriyadda somalilan si dhidibada loogu taago loo soo maray xus oo xasuuso ayaan markaa iyadana muuqaal aan idiin soo gudbin doonaa kusoo dhowaada barnaamijka maanta waxaan joognaa goob taariikhiya oo buurtii barta xaggana waxay taariikh way lahayd ka soo bilow 80kii ilaa iyo 88kii oo buurtii dadka lagu leen jiray ha ugu badnaato 1980kii odayaashii magaalada hargeysa dadkii reer somaliland amba dadkii hargeysa ayaa lagu leen jiray buurtan barta la yiraahdo bartan lagu xidhay ayaa lagu leen jiray يا مركز توحى ويا وما تعرفني أفرستيك واحد يقول لي إن واحد يقول لي إن الشيخ مسد العالم وبركي عبد الله أذكر الله بحي وياشي لك قبطيها واحد يقول لي عبد الله عبد كود ورا قلبين واحد يقول لي واحد عبد السليمان ورد لي بقرا الجارية أي قلت له قلت لي عم باي هيدا قف تستول لي مجالات هرجيسي برتا سكت أوي جرتي صرت قارنك حق اللي قلت له حد كميت كمان اللي راه حق عيني قاعد تلدي iminka xabaalihii waxay yeelaan waxa weeyaan xageena yara hoosay oo maanta buurta guriga ka dhismay oo waxa weeyaan xageena hoosta Cabdilaahi Qarsha ku aasan oo abi fanka umada reer Somaliland fi casriga ahaaba isna ku aasan oo isaga si gaar ah lagu aasay marka dadka waxa weey buurta taariikhdaas ay leedahay waxaan u baahnay waxa weeyaan in kasto ay unfortunately meeshii la dhistay waxaan doonaynaa in museum noqoto soo diyaaradda Hargeysa oo barkani taariikhda qof kasto waqtigan oo wuxuu qaranayaa xasuuqii loo geystay sartoon sare dadka markii la xasuuqayay ee dawladda baabiinaysay waa buurtii dadka lagu leeyay intaas oo odaybay waxa weeyaan qabtaa maskaxeena kama baxdo
waxa weeyaan buurtan taariikhdaasay leedahay taariikhdaana xusi doontaa maanta maadaamay rabadaan tahay waxaan soo booqannay oo aanu xus u nimid oo inaynu ducayno aanu xasuusanno dad kale xasuusino taariikhday buurtan lahayd dad badan bay maskaxdooda dib ugu celin doontaa oo waqtigaa noolaa buurtan iyo sii dadka lagu leelayay waxa weeyaan waxay xasuusaha dadka ku jiraan iyadoo dadka la laynayo oo dadka inta tiir lagu xidhay deeta magaaladu way koobnayd ay magaaladu barta ka soo daawanayso oo dadkii ay ka dhasheenna aanay daawan karin aanay iman karin oo inta la dilo waxa weeyaan ay dadku ooyeen xataa waxa dhacday dadkii bartan lagu soo dilay inta si aan loo samayn jirin oo reer baa lagu xidhay waxaad u ooyday hebel oo kacan durisa ay u ooyday ay reer loo xidhay dadkoodii la laayay waxa weeyaan lama weydiin jirin taasi loolama iman jirin waqti aad u adag baa oo xusuusaha dadka xusan maanta waxaan xusaynaa waxaan u ducaynaynaa oo ilaahay u baryaynaa waa bir rabadaan oo 15 dambe inuu ilaahay u naxariisto dadka shahiidiin waxa weeyaan iyagoo waxba galabsan awood dawladnimo iyo awood loo adeegsaday ee lagu laayay buurta magaceega waa barka waxa ku taala koonfurta magaalada Hargeysa waa buurta caanka waa la gumburtaayar waxa ka koomantay wala gumburta oo barka yar ba kala dhahda hadii ku tuwi inta taawara ka samaysan dekedeedii sare inta kala xaafaday noqdeen xabaalihina way naga hooseeyaan maanta intaas ku soo koobina inta bisha rabada socotana taariikhdaas aan bal soo xusi doona xasuuqi ka dhacay Soomaaliya Hargeysa iyo waxa xasuuqi Rashaq Isxaaq Johnson iyo wixii taariikh jirtay ayaan dib u soo faqi doonaa intaan ka gaadho maalinba goobay tagi doonaa xidhka meydka oo dadka xaggan lagu laaqay qaar baa lagu tuuri jiray dabeeta waxa la dooni jiray reer qobol inay soo arkaan cidda timaada loo jiray reer kana tiina wala qaban jiray marka bal dhibaatada tahay inankii iyo inta la dilay badan lagu tuuray inankii iyo barkii lagu dilayo waa iman kari wala sikri oo taasi qaban kari oo ducan kari ilaahay xasuustana oo raabi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh آمين آمين الله نحرسته دمانتود dadkaasi moogta xaq darada lagu xasuuqay ee dhibkiya dhaawaca iyo moogta xasuuqa boqol kale iskugu taxayay xabada la marinayay midida la marinayay ilaahay jannada firdawsa geeyo kulli waa la geeyay jannada moogta waa gacan ka xaq daran badishay hadaba dadkii sida moogta de arxan darada ah la iskugu xidhayay rag baa daba baasaboor doonaya inay hal dawladii dhibka geysatay ee markaasi xasuuqaasi geysatay ee dhibka dhan markaasi u geysatay shacabkaasi moogtay dhibaatadaasi soo maray dad baa intay iska iloobeen haddana u gacmahaadinaya kuwii dhibka geystay dambiilayaashaha oo weli hadda qalbiga ka jecel baa jira aanu garan maayo kuwaasi waxay dee damiirka ka qaaday laakiinse waxaaba ka daran oo dibi dhal ah ninbaa halkan inoo fadhiyayna geela la yidhaahdo khasababad ku raacaysaan baabuu taagan yahayba haddii kale joogi maysaan wararka hadda soo baxaya iyo xogahan idiin hayo waxa iga qosliyay iga yaabiyeyba waxa uu taagan yahayba baasaboorradii baa kala noqonayaa buu yidhi xukuumadda cusubay wallaahi waa xogta rasmiga hadda la soo gaadhay ee warbaahinta soo gaadhay ee weliba moogta ila la hubo ayaa xaqiijinaya ninkiina geelu waxa laaqsay waxa uu taagan yahayba xukuumaddan waxaan doonaya aniga inay hoggaansanaatee sidee bay horta iga dulboodaa buu taagan yahay ee imaaraadka carabta madaxweynuhu tegay xiriirka ganacsi iyo markaa wada shaqayn la yeeshay ayuu xoog uga sii masayrayba kaasi oo hadda uu u arko in wuxuu doonay gacanta ku hayo markaas cagta hoosteeda saaro xukuumadda Soomaaliland isaga ay ka amar qaataan markii koobaad halkaas uu ka booday imika digniin buu soo saaray waxa uu leeyahay khasab wada hadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland way la bilaabaa waa in Soomaaliya dib ugu noqotaan waxaad ogeydeen iyagoo dhowr nin oo moogta xisbiga wadani ka tirsaday markii doorashada lagu guuleystay intayna gela u tageen halkaa ay badahayeen oo inognahay rag badan in halka tageen ayaa waxa ayaan darahayd in wasiir xitaa ka mid ah ma garatay Djibouti intuu ka hadlay yiri maanta laga bilaabo magaca Soomaaliland idinku yeedhay gobolada waqooyiba idinku yeedhay buu yiri yaani dawladnimadii wax gobolada kale xitaa la kala noqonayaa buu yiri way duuban tahay moogtahay waan haynaa recordkeedii oo moogtahay dhowr barnaamij hore waan sii daayay marka waxa ku tiigaali maayo dib ugu noqon maayo cadeynteedina waan haynaa waan ognahay ninka wasiirka in hortooda ka lahaa nimankii xitaa ixtiraam isma oran moogtay martibay ku yihiin calaa kulli xaal Djibouti hadda warkeedii way cadeysay waxaana ay
leeyihiin baasaaboorradii waa laydinkala noqonayaa haddii kale degdeg wadahadaladii soomaaliya ugu soo noqda bay ku yidhaahdeen amarkaasay soo saareen waxaana ay leeyihiin xiriirka wanaad imaaraadka u goysaan bay leeyihiin oo markaasi annaga na hoos tagtaan qarashka ugu badan annaga bixino doorashadii soo saarnay bay ku doodayaan xogtaasiba hadda soo baxday haddaba waxa weeye soomaaliya way khasab la midoodaan buu leeyahy soomaaliyada khasab la midoodaan hadduu dhowdhowdu uma dhacsane waa taa boqolka iskugu xidhaysay barhka istaajinaysay dadka dee reer somalilan yacni geelow aduguna dadkii aad moogtahay waqtigii sirdoonka aad haysatay waqtigaa barhka dadka lagu xidhxidhayay isaguna sirdoonku ahaa jabuuti moogta waxaa lagu eedeeyaa inuu ilaa dad badan oo moogtahay beeshay saaqa soo ururiyey xadka soo dhigay oo gacanta uga soo geliyey ninkii waqtigaasi dee siyaad bar mushrimkii weyna dadka xasuuqayay aduu calaayi kulli xaal hadda jabuuti waxa uu taagan yahay ina geelle degdeg waa in amarkayga loo qaataa buu yidhi haddaba siday jamhuuriyadda somalilan iyo madaxweyne cirre uga jawaabo ayaynu eegi doonaa waynoo barnaamijyada dambe nabadgelyo